waa la isdhaxlooyaa waa la isboo culus oo u dhaxeeyo maslaxmadee iyo abaabula oo isku haysto hoos ka sii yaa ka gar leh iyo sheekh Catoos oo dibaadinaya gabdhaha muslimaadka ah waad arkaysaan muuqaalkan adres ka taawo war adiga liida taagan ah kula hadla sheer garay folowde dharka qaado ilaahay ka cabso is astur walaalay jirkaada astur ilaahay ka cabso Give me the bag, show me like the push of the bag. We take the bag, we roll it, washing the shop كده. Give me the bag, we take the bag, we roll it, washing the shop كده. Give me the bag. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please. I'm trying to get paid. saxaabay soo dhawaada hal eraya idin weydiina halkaas eray markaad maqashiin isla markiiba maskaxdiina soo galaayo commentiga hal ugu qoro waa la isdhaxlooyaa waa la isboobooyaa dadkii naga waaweynay anaga aan ku dayaynay hadda markaan kabayna gasooyin eraygan hoos ka sii haddaad maqashid yaa kugu soo dhacay isla markaas daraad waxaan u jeedi wasiir Khadiija oo eray soo qortay hoos ka sii eray hirgalay ku soo qortay oo xataa iigu soo hambaliyayso itiri abaabala eraygan waa ku gadmay wasiir Khadiija ayaa oo alfanaan Maxamed Saciid Biike xataa uu yiri laba eraygan ka haya hoos ka sii iyo ha ka shakinin hadda daraad waxaan u jeedaa maslax madee daraad heesoo markuu soo qaaday magaceegi iyo hoos ka siibo kama xumin nin aan jeclahay waa fanaan weyn waay hadda waxaas bilaabo heer asdhaho macnaha hoos ka sii anaa leh makaa yeelay walaalkay haddii wixii ka dambeeyay dagaal la isku diyaariyay shaf kale in saari karnaayaa